su-aashu waxa weeyaan haddaba waa maxay wasaa'ilka inugu xijin kara diinteenna sidaynu u xijin karnaa waxaynu u baahannahay inaynu in yar dib ugu noqonno tajribadii saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi moxamed wadcigaynu ku loon lahay mid ka adag bay ku noolaayeen mid ka adag nebi maxamed isagoo keligiiya la soo diray calayhi salaatu wasalaam qof iyo laba iyo saddex baa rumeeyey dhul gaaleedna way deganaayeen meeshay deganaayeen markii waa dhul gaaleed madiinina waa dhul gaaleed marka gaalaa degan culture kalaa yaalla luqadooda isku mid bay ahayd laakiin caqiide iyo dhaqan ka gadisan kii jaahiliga bay haysteen sidee bay u dhacday inay saxaabada iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ka hor tagaan oo ay diintoodii u xejistaan waxaan rabaa inaan in yar tilmaamno afartii suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegay qur-aanka culamadu waxay isku waafaqsayeen afar suuradood ba ugu soo hordegay ayay inta badan tilmaamaan weliba afarta suuradood oo wada dhan maaha mid walba qeybteeda hore waa suurat alcalaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة داس قيب طاهرة وحكالو ينسو دكتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آيات كاسي هرير وحكالو سو دكتي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلى آيات كسيحية وحكى سودقي نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا آياتك هاي علماء يراهدان waxyigii koowaad ee nebi maxamed ku soo degay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa godka markuu ku jiray laakiin maadaama uu nolol adag waajihi doono waxay idhahdaan qaabka wax la isugu bara tacliimka si qabow baa qofka wax loo baraa laakiin nebi maxamed markii lagu bilaabayey qaab adag baa loogu bilaabay malakul jibriil baa intuu qabtoo gelgelay ayuu iqra ku yidhi waxay culammadu yidhahdaan waxaa la taabsiinayey qimatu lintibaahi wasaxwa waxaa soo socdaa wax fudud inaanu ahayna inuu xoog u soo jeesto dabeetana qur-aankan baa ku soo degay qur-aankani muxuu ka warramayaa waxay yidhahdaan aayaadkani waxay sheegayaan haddii lagu dhaqmo waa waxa sababi kara inay cidi mabaadi'deeda haysato ku dheganaato diinta inaad xejisato aayaadkani dhowr shay bay ka warramayaan midi waxa weeyaan kow waxay ka warramayaan qadiyat alcilm iyadoo laga yaabo carab inay jahli ku sugnayd aqoon inaan waxba ka jirin oo ay noloshoodu cayn ka ahayd cilmiguna inaanu qiimo badan agtooda ku lahayn laakiin wixii qur-aanka ugu soo hordegay masalada qalamka masalada kitaabada iyo akhriska iyo cilmiga iyo ku saabsan buu ahaa laba suuradood markaa nuun walqalami wamaa yasturuun waxaa lagaga warramayaa qalinka iyo waxa la qoro اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قضية العلم والقلم والسطور بالغ والرمى هاي علماء يدادن كو الجاهل وحبيسك ما دفاعي كره دي الرباط دين تنين نحيش سنو وين نبرناها قضية العلم في نادم كوحك كواده وسكو دافعه ومسألة العلم waxaanad cilmi u lahayn ma difaaci kartid waxaanad garanaynin ma difaaci kartid waxaanad garanaynin shubahaadka kugu badanaya waa lagu shaki gelinaya waxaanad garanaynin asilada dadka kama jawaabi kartid waxaanad garanaynin ma garan kartid maxaad u haysataa
إذا أولى شيء أما شيء أوه الرأي نوبا هنا هدي إنه ربنا إنه ديننا هيسنا وين نقرنا وين نبرنا وين نقانو يالنا عقيدة دي وحي شيء يسوع وين نقرنا reasoning كذي common sense كذي وحكدم بيا وين نقرنا وين عقلي نوح وقاضا كرن نقطة وين سفي عنه فهمنا كسوامد كلبات آيات كان يكورم يا محويان وحيد هذا خير الدفاع خير وسيلة للدفاع هو الهجوم بين هذا وسيلة وقف عن الدفاع لوجل وين هجوم ما ديار طهينة وحسك دين كرتين هدي أدقون لقوي يرام مبادئ كلون لقوه وضه والله ما يسا لكن إلهي النبي محمد يقول يا أيها المدثر قم فأنذر كان اسداد يوبا ليدي كع أدك وحكاه الرئيس سود كتاب من يقرأ يريو يمكن النبي عليه الصلاة والسلام لحد بلادك سعوني هذا نوح الغب لا بينه كع أدقه إذن إن دعوة سمينا إن ندتك كلا الدين تويرنا وواحد كان سنة يتين إن نحيشين كرنا وحلقوا يدي مركها قم فأنذر وربك فكبر ربي كان وينيه وثيابك فطهر مريها هاجي قلوب تادي كوري هوسبا استاهر ريال والرجس فهجر حمها كجور كهجرود ولا تمنن تستكثر إخلاص لك عليه واحد بحين يسها من شيئا وحلو يدي مركا ولربك فاصبر وضضا إن أتقادانا مشاكل هي تشالنج عصب ويان يدنا الصبر بالليل كوحل لنا قضية كود وقضية العلم هذين رمين دين تن قصقنا نوحش إنه وين نبرنا قرنا سفي عنه فهمنا وهي اليويل يربع كذا اللي بعدنا وامحي وين نيضا شقينا دتك قارسينا إنه ناس قارسينا وهنا نسكت طهرنا كوريو هوسبا حماها كهجرونو كجورو وحاسنا وين ينقى هذا إلهي درتي يا خلاص challenge كاين هور إيمان دوننا وين نوصبرنا كاس على فرق بنادم كو هدو شيء علص قاضه وداله هدو challenge كو أتقاضه ويسديبه لكن قفك مسلم قال مرة بينه يسديبه محوصة ماينية وحرير كاد إلهي لا يضي أتكيبه لقولي ضاد الربطه inaad ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisana hesho hadday dhibo ku qabsato maxaad ka fikirtaa qofka bini'aadamka markay dhibo qabsato مثلا economical problem baa ku qabsaday dhaqaale dhib dhaqaale markiiba waxaad fikiraysaa wartalow xagaad ula kacda waxaa kugu soo xaadiraya ciddii qaraaba iyo toliya asxaab ahaydeen ee waxaysataad isleeday waxbay kaa tari karaysaa baa markaaba madaxaaga ku soo xaadiraya marka waxaad markiiba tijaabinaysaa bal intaasi culayska inay kaa qaado inaad connection la sameeyo xidhiidh inaad ku wala samayso ilaahay wuxuu leeyahay haddii diintan culays aad dareentaan aniga xidhiidh la sameeyo saadaradeed baa nabi maxamed waxa lagu yidhi iyo saxaabada yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila habeenkii kac baa la yidhi nuskii ama intiisa badan ama in yar nuska ka yare habeenkii kac ilaahay xidhiidhkaad la leeday xooji waayo innaa sanulqii calayka qawlan thaqiila baa ilaah yidhi war culus baan kuu dhiibayaa baa ilaah yidhi diinkan inaad xambaartaa waa culays baa ilaahay leeyahy haddaba culayskaasi si u fududaado ilaahay kaalmayso ilaahay cibaadadiisa iyo ku-xidhnaantiisa iyo baryadiisa kaa kaalmaysa baa ilaahay leeyahy ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu watan wa aqwamu qiila maalin oo dhanna waina laka fi nahaari sabxan tawiila tasbiixso oo dikrigaaga badi watabatal ilayhi tabtiila waka suuradoo dhamme markaa waxay tilmaamaysaa qaybtan aynu tilmaamaynaa haddaad aqoon diintiina u yeelataan oo ku qanacdaan isla markaana aad dacwa samaysaan oo dadka ugu yeedhaan idinkuna ay isdaahirisaan sabir baa laydinka baahan yahay haddii challenge-ku xoogoobo
مركز إلهي كحدنو باليدي بيده ملكوت كل شيء سيقا قعنتي سوح ولبا كجران الله وح ولبا قعنتي سكجران كحدن باليدي waxaan leenahay marka afarta suuradood hore intaasay ka warramayaan saxaabadii si fiican afartan u fahmay ilaahay muxuu ku sifeeyey min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila mu'miniinta waxaa ka mida baa ilaahay yidhi rag ka run sheegay wixii ay ilaahay ballan la galeen qaarna waa ku dhinteen iyagoo diintoodii haystay dhinteen qaarna waa sugayaan wax bedela kamay samayn diintoodii baa ilaahay leeyay may bedelin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar waa rag baa ilaahay leeyay aanay ka mashquulinin tijaarada iyo bayca iyo dhaqaale raadintu ilaahay xuskiisa dhaqaalu ma dhaafiya baa ilaahay leeyay iyo salaada ogisteeda iyo zakada bixinteeda waayo waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo indhuhuba ay gadgadoomaan waxaan inta badan su-aalaha haddii goor la isweydiiye waxaa ka mid a meelahan marka la joogo shaqadii iyo maxaa la yidhaahdaa iyo salaadii baa isku beegmooyde sheekh maxaa la yaal waxaa qiil loo raadinaya maxay shaqaduna dee iyadu isweydiin male inay xagga salaada laga helo fasax loo helo dhanka salaada ka soo baxa ama ilaahayna wuxuu ina leeyahay raggaa diintooda haystay astaantooda waxay ahayd rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaa duul aanay ka weecinin ama aanay dhaafinin tijaarada iyo xoolo raadisku ilaahay xuskiisa iyo salaada ogisteeda iyo zakada aanay dhaafinin idan waxaan leenahay kow afarta shay ama saddexda shay ee aynu nidhi duuduub ahaan afartaas suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegaa tilmaamayay waa waxa koowaad aynu diinta ku xijin karno waa tajribadii ay ka soo baxeen saxaabadii iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaan iyaba dhul gaaleed bay joogeene waxay diintoodii u xejisteen ee ay u faafiyeen maanta dhowrka 2 bilyan ay u haysataa qur-aankaasaa ilaahay ku sugay waxaa sheegaya